gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax oo maalmahan kormeerayay deegaanada gobolka ayaa maanta gaaray deegaanka number 50 ee hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana safarka ku weelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed xildhibaan Xuseen Cali Xaaji iyo qaar ka mid ah ku-xigeenada gobolka gudoomiyaha gobolka iyo mas'uuliyiinta la socotay ayaa kulan waxay la qaateen odayaasha dhaqanka deegaanka number 50 iyagoona gudoomiyaha gobolka la wadaagay baahiyaha ka jira deegaanka oo ay ugu horeeyaan waxbarashada iyo caafimaad la'aan ugu horeyn waxa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo xildhibaan Xuseen Cali Xaaji deegaankan Koonfur Galbeed muhiim u yahay deegaankan muhiimadiisana waa la yaqaanaa dad jecel dadkana jecel yihiin deegaankana dad jecel yihiin soo dhaweentana ku fiican anaga waxaan ka soconaa dawladdan ka soconaa waxa la idin ku imaadana waxay tahay in mar walaalayaal waxa idin ka codsanaa deegaanka number 50 dib wixii soo mar lahaa waa soo mari intaas ka badan wax kale dib ma qaadi karo baasay anaga dhan walaalaanahay cid maanta cid number 50 ka xigto ma jiro macna dhammaan deegaankan waa la wada degan yahay waa la wada leeyahay Soomaaliya wada degan maamulkan waxa macquul ah oo la dhisaayo qof walba inuu isku dhameystirnayna laga yaabaa dadka ayaga maamulka la dhis waxa laga rabaa maalintii la dhisi maamul laga dhigay ay qabiil meeshaas ugu dambeeya ayaga qofkii qabiil ka shaqeeyo oo maamulkaas lagu soo daro ilaahay qofkii calafkiisa soo dhigay hadda qofna go'aansan anaga ma jiro qofkiis ilaahay calafkiisa ugu dhigo gudoomiyaha iyo maamulkiisa qofkii laga dhigo waxa laga rabaa inuu ka shaqeeyo deegaanka number 50 iyo horumarka inay horumarto anaga waxa diyaar u nahay in la shaqeeyno number 50 waa u badanayna aniga gudoomiyaha gobolka asxaabteeda mar walba waa idin imaanayna ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono xarun caafimaad iyo waliba saldhig booliis waxaan idin ballan qaadaynaa marka ka dawlad ahaan anigoo ka wakiila dhammaan dadka halkaan fadhiya iyo kuwa kale ee maqan magaca dawladnimada aan wadaagno oo shacabka mas'uuliyadaas aan u qaadnay oo madaxweynaha uu noo soo wakiishay number 50 inaan wax badan ka bedeli doono nolosha dadka oo ugu horeyso adeegyada bulshada guryaha leedin dhisa lama dhahayo shakhsi laakiin iskuulaadkii isbitaaladii suuqii qudaarta dhammaan adeegyadii bulshada inaan wax ka qaban doono waa leedin ballan qaadaya waana sababta aan u socono oo halkaan u nimiday ka mid waxaan rabnaa halkaan maadaama magaalo istaraatiiji ay tahay dad fiican ay ku nool yihiin adeegyo bulsho oo qurux badan oo amniga u fiican odayaasha u fiican haweenka u fiican dhalinyarada u fiican inaan halkaan ka hirgelino si taas loo gaaro marka idinkana waajibaada idin saaran ciidanka waajibaada saaran amniga inay ka sii shaqeeyaan odayaasha waajibaada saaran bulshada inay isku hayaan bulshada in la isku hayo rabta culaysa ka jiro dalka wax shakhsi maamul laga dhigay kaligiis waxa mali karana ma culayska wadanka ka jiro haddii aan anagu ogeyn meeshan ka nimid dhibaatay leedahay Soomaalidana badana shalay way hilmaantaa maanta iyo waxay ka fikirtaa inta ma dhaafsiisan inta hadii ayaga isla hadlaysaan wax dhaafsiisan male